iyadoo abaartii baahsaneed ee ka dhacday gobolada bariga Somaliland ay saameyn ballaaran u geysatay dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa geeyiga Somaliland ayaa degmada Celafweyn waxay ka mid tahay meelihii abaartu ay saameynta badan ugu geysatay dadkii xoolo dhaqatada ahaa waxayna dhammaanba ay ku soo xoroodeen gudaha degmada Celafweyn haddaba koox dhalinyaro ah oo iskood isku xilqaantay ayaa gaarsiisay kaalmo deeq lacageed ah oo ay jeebkooda ka soo aruureen dadkaas ay abaartu saameysay ku dhaqan degmadaasi Celafweyn iyagoona halkaasi ku guddoonsiiyay kaalmadani iyagoo ka naxaya xaaladda ay ku sugan yihiin ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Faatax Xirsi Cabbaas iyo weliba dhalinyarada kale ee lacagtani gaarsiinaysay dadkan ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan agagaarka degmadaasi Celafweyn waxaanu ka nimi iminkana markii hore ka nimi Buurdhuubo haddeer waxaan joognaa xaafad Soomaal waxaanu siinaynaa insha Allah qadar yar aan badnayn oo lacag ah waanu siinaynaa markii horena kuwan soo siinay halkan waanu siinaynaa insha Allah marka waxaan gudagalaynaa qodobada yar intii aanu siin lahayn lacagta ururka tabaalaysan weeye taakulaanta dadka tabaaraysan dhalinyarada ururkaygula jirtay inta badan la soo shaqaysay waxaanu siinay qadar lacag ah intii baahnayd annaga dal iyo dibatoona cidinagama soo caawinin lixdayada arday waanu midownay waxaanu ka midownay inaanu walaalaha iyo caawino dal iyo dibadba waanu caawin doonaa insha Allah miyi iyo magaalaba waanu bixi doonaa ka curyaanka waxbaanu tari doonaa keendhaala ka dhagaala maxay toolay ka waalan mid marka anagu dadkayaga markaanu aragnay sida loo galayo inaan maxay toolay lacag la siin inaan biyo la siin waxaanu ka midownay inaanu caawino walaalaha insha Allah maanta oo kaliya tama noqon doonto in badan waan idin caawin doonaa soo tarin ilaahay mooyaan ilaahay baan garab taagnaa lix arday baanu lahay lixdeeda arday waxaan niyadayada ka keenay inaan dadkayga masaakiinta ah wax siino hooyooyinkayoo kale aabayaashayoo kale waxayagoo kale inaanu siino dadka masaakiinta ah lacag deeqa oo aan looga keenin Yurub meel kale aan looga keenin magaalada iyaga aan la kaashanay dadkii deeqdaasi la gaarsiiyay ayaguna dhankooda ka mahad celiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen dhalinyaradani waxaanu leenahay ilaahay ka sajaay mariyo bismillaahir rahmaanir rahiim ururka malaa'igtana siiyay ayaan u mahad celinay bismillaahir rahmaanir ilaahay taa kulay haydin siiyo risaqad qayr qabtana Allah idin dhiibo annana naafac wanaagsan Allah naga siiyo Axmed Maxamed Cilmi Hoon Cable TV Celafweyn